een waa arrin halis ah oo dadkeenu aan ku baraarugsaneyn waxaa jira dawooyin badan oo qofku soo aan dhakhtar la'aantii aanu qaadan karin tusaalahan kale hadeer marka qofku xumad badan oo yeesho kale waxaa jira dawooyin dadku iska qaataan oo farmasiya ka qaataan oo halis ah oo sida maanta diclofenac kale kuwaas oo ku sababi kara maxaa dhiigbax ku sababi kara sidoo kale in ma taqaanaa dawooyinka khaldan qofku qaato waxay keeni kartaa delayed diagnosis in la ogaado diagnosiskii uu dib u dhaco kale sidoo kale in ma taqaanaa marka qaarkood waxay ku sababtaa hal dhaho inappropriate treatment oo wixii saxda ahayn inaan maxaa laga daweyn sidoo kale waxay dhici kartaa in qiyaas khaldan qofku uu qaato oo intii saxda aan lagu talagelin in ka badan la siiyo ama in ka yar la siiyo sidoo kale waxaa dhici karta in ma taqaanaa qarinta calaamadihii oo xanuunada qaarkood baa ayaa qofku dawooyinka qaato calaamadihii halista u qarinaya taasoo si ayra uu xanuunka ugu sii fiday jirkii iyadoo calaamadihii la qariyay marka marnaba maxana kama maarmayso dawooyinka waliba xilligan hadda aan ku jirno in dhakhtar ku qoro oo kuwaas soo sheegna kamid ahaa dawooyinka dhiigbaxa keeni kara sida diclofenac oo kale waa dadkeena aad bay iska badan yihiin oo keenada xumaatibinta inta iska qaataan ay dhiigbax ku sababi karaan sankii iyo afkii meel kasta dhiig ka iman kara xaalad halis ah gelin karaysa markaas waa arrin muhiim ah inay dadku ogsoonaadaan in dawooyinka qofku aanu iska qaadan karin dhakhtar la'aan